kuray xooglaha inuu naqaano wiil iyo gabadhba ka uu noqdoba sidii loola macaamili lahaa. mushkilaad badan oo aynu ka cabanayno ubadkeena aynu kaga cabanayno waxay ku timaadaa inta badan mushkilaadkaasi soo ifbaxaan markuu muraahiq noqdo ee ilmihii uu ku qaangaadhkii ku dhowaado. waa marka dugsi dhexe ilaa dugsi sare ilaa jaamacadda bilowgeeda uu ilmuhu yahay xaaladda noocaas oo qof weynna aanu noqon oo isku filan, ilmihii yaraana uu ka koray xaaladda noocaas oo isbedello badan ay ku yimaadaan. sida ubadkeena aynu ula macaamilayno ayaan doonaya insha allahu tacaala qodobo muhim inaan ka idhaahdo. horta muraahiqu waa kuma? qofkan aynu ka hadlaynaa waa kii? luqadda carbeed kelmadda muraahiq waxaa laga keenay raahaqa ayaa laga keenay oo macnaheedu yahay in wax loo dhowaado, aliqtiraabu min ashay, ilmuhu inuu u dhowaado qaangaadhnimo inuu u dhowaado ama inuu kaag dhow yahay. waxaa kaloo macnayaasha kelmadda raahaqi ay leedahay ka mid a fudaydka, qofku inuu fudud yahay, beenta, kulaylka, maangaabnimada, degdega iyo waxyaabaha lamidka ah. sida ibnu manduur uu lisaanulcarabka ku sheegayo, macnayaashaas oo dhanna qofka muraahiqa waa ku sugan tahay. fudayd buu leeyahay, xiddo iyo kulayl buu leeyahay, caqligiisu iskuma filla, waa gaaban yahay, degdeg baa ku jira, inta badan waxa uu samaynayo waxyaabahaas oo dhan waa tilmaamo uu leeyahay. culimada nafsigu waxay yidhaahdeen muraahaqadu waa inuu u dhowaado ilmihii, inuu u dhowaado bisayl xagga jidhka ah, xagga caqliga ah, xagga naftiisa psychology ahaan, xagga bulsho ahaan iyo dadka suula macaamilayo inuu ku dhowaado bisaylnimo, inuu ku dhowaado. marka inuu ku dhowaado bisaylnimo ma aha inuu bislaaday ma aha, ee waa ku dhowaanaya. farqi baana udhaxeeya qofku shayga inuu ku dhowaado iyo inuu gaadho, farqi baa udhaxeeya. goormuu bislaanaya ama bisaylka xaqiiqigaa gaadhayaa? waa markuu 10 sano, waxa weeye muraahaqada markuu gaadho ilaa 10 sano ka dambeeya baa laga yaabaa inuu bisaylka dhamaystiran uu gaadho. muraahaqadu waxay leedahay maraaxil bay leedahay oo kala duwan. mid waxaa la yidhaahdaa muraahaqatu اlأuulى, muraahaqada mutaqadimkee hore ee koowaad. waxaynu ku tilmaami karnaa ilmuhu markuu dhiganayo dugsiga dhexe, dugsi hoosena ka gudbay, dugsi sarena aanu gaadhin, waa halka muraahaqadu ka bilaabato. waa marka uu yahay 12, 13, 14 jir meelahaas marka uu yahay wey. xaaladda noocaasa ilmuhu aada buu isu bedelaa, jidhkiisu isu bedelaa. saynu tilmaami doono isbedelo badan baa ku imanaya. ta labaad waa muraahaqada dhexe oo ka bilaabmaysa markuu 14 ama 15 gaadho ilaa 18 uu ka gaadhayo. iyadana isbedelo badan baa ku yimaada. qiyaas ahaan waa markuu dhiganayo dugsi sare uu dhiganayo. marxaladda saddexaad waa muraahaqada dambe, waa wixii intaa ka dambeeya 18, 19, 20, 21 jaamacadda uu bilaabayo ama jaamacadda uu sugayo. taasina waa muraahaqada dambe wey. marka la isku celceliyo muraahaqada marxaladan ilmuhu uu gaadhayo, qaangaadhka ku dhowaanaya ama wax yar uu dhaafayo, waxay leedahay koboc qaabab kala duwana. ilmihii xagga jidhka waa ka kobcaya, xagga bulshanimo waa ka kobcaya, caqligiisu waa kobcaya, dareenkiisa iyo caatifadiisu waa kobcaysaa. dhinacyadaas oo dhan buu si deg dega uga kobcaya. xagga jidhka waa ka kobcaya oo 2 qaabba waa uga kobcaya. jidhkiisa hoos ahaaneed iyo sida uu shaqaynayo waxa weeye waa kobcaya, oo ay ugu muuqato waxa weeye dareenkiisa jinsi ama galmo ama shahwo
inuu waxa weeye koboc ziyaadaha uu samaynayo oo dareenkiisaasi waa kobcaya. xagga muuqanaysa jidhkana isbedelo badan baa ku imanaya oo jidhkiisu waa kobcaya. waxyaabaha ka muuqanaya waxaa ka mid ah jidhkiisu inuu deg deg u baxayo oo dhaqsa uu ku dheeraanayo. waxaa ka mid ah garbihiisu inay fidayaan, laabtiisu inay fidayso ballaadhanayso, cadalaadkiisu ama murqihiisu inay soo baxayaan, shaarubihii iyo timihii garhku iyo timihii xagga hoose ka soo baxayay in xaaddoodu ama ay soo bilaabmayaan. codkiisu inuu adkaanayo oo cod nin weyn uu isu bedelayo. isbedeladaas oo dhan naasihiisa ibtooda ayaa waxa weeye weynaanaysa. waxaa ka soo baxaya dhidid badan ayaa ku bilaabmaya. xubnaha jidhkiisa kala duwan ayaa kobcaya. waxaa ka soo baxaya finanka findoob loo yaqaano ayaa ku bilaabmaya iyo calaamadaha la midka ka muuqanaya waxa weeye ilmaha xilligaa gaadhay ee koraya. calaamadaha in badan oo ka midi waxay ilmaha ku keenayaan xaalad nafsiya. markuu codkiisu isbedelo, markuu jidhkiisa ka arko waxyaaba aanu ku ogeyn, waxyaabahaasoo dhan waxay ku keenaysaa isbedel iyo misaajkiisa oo isbedela ayay waxa weeye ku keenaysaa. dhinaca labaad uu ka kobcaya waa xagga bulshada. ilmihii wuxuu jeclaanaya inuu asxaabtiisa la jaan qaado, wanaag iyo xumaan waxay samaynayaanba inaanu ka soocmin. wuxuu jeclaanayaa naftiisa inuu meel u sameeyo oo naftiisu muuqato oo shaksiyaddiisa uu sugo, jiritaankiisa uu u dagaalamo oo uu yidhaahdaa aniguna way ka kan ismuujiyo, iyaduna waa muuqanaysaa. waxaa muuqanaya inuu dareemo ilmo caruura inaanu ahayn oo wuxuu isu dhigayaa qof weyn. waxaa ka muuqanaysa inuu jecel yahay inuu isbedel sameeyo oo qaabkii uu labisanayay qaab ka duwan. la yaabi maysid markuu da-daa gaadho inuu timaha la baxo, dhinacyadana uu xeerto, ama qaab aan la aqoon inuu u labisto meeshuu doonaha ka keeno. waayo wuxuu jecel yahay ismuujinta iyo waxaa cusub. wuxuu jecel yahay inuu naftiisa geliyo doodo aanu ehel u ahayn, oo hadday siyaasad tahay, hadday dhaqaalo tahay, hadday tahay arrimaha bulshada, inuu ra'yigiisa ka dhibto, ka doodo wuxuu gaadhay iyo waxaanu gaadhinba waa jecel yahay. waxaa ka mid ah inuu jecel yahay biimada iyo tijaabinta, inuu waxa weeye jecel yahay baa tilmaamihiisa ka mid ah. waxaa ka mid ah inuu jecel yahay waxyaabaha iska caadiga rootiniga ah inuu jabiyo, oo xitaa guriga markuu ku nool yahay cuntadii la iska cunayey, bariiskii iyo baastadii guriga laga cunay inuu iska soo taagaa laga yaabo oo yidhahdo wax kalaan doonaya oo aan cuno. waxa rootiinka ama iska caadiga ah inuu ka soo horjeesta ayuu caado u leeyahy. wuxuu jeclaysanayaa inuu guriga ka madax banaanaado xilliga uu soo gelayo, xilliga uu ka baxayo, meesha uu seexanayo, in ciyaalka laga sooco, meel gaara u dego, wax gaara u yeesho, cuslo iyo istiqlaaliyo iyo madax banaani ayuu jeclaysanaya. waa waxa ku saabsan xagga bulshada iyo dad la dhaqanka. wuxuu ka kobcayaa ilmahaasi xagga dareenka, oo wuxuu jecel yahay oo astaan u ah isbedbedel deg dega. wuxuu maanta jeclaysanayay baa laga yaaba berito si xun inuu naco. wuxuu maanta sida adag u diidanaa ayuu berito dalbanaya oo jeclaysanaya. waxaa ka mid a cadhadiisu inay badnaanayso, dulqaadkiisu yaraanayo. waxaa laga yaabaa marka laba kelmadood lagu yidhahdo gurigaba inuu ka baxo. waxaa laga yaabaa gurigaba inuu ka dhaxo habeenka aan uu soo hoyin. wuxuu caan ku yahay inuu waxa weeye naftiisa jacaylku uu ku bato, caatifadu ay ku badato. wuxuu jeclaanayaa naftiisa, wuxuu la jeclaanayaa inuu raaxaysto, wuxuu jeclaanayaa saaxiibadii ayuu xiisaynaya oo jeclaanaya. waxaa ku abuurmaya baqdin uu baqayo oo uu ka baqayo mawaaqifta bulsho kala duwan, waayo wuxuu ogyahay khibradiisa nololeed inay daciif tahay. sidaa ogeed hadduu meel fagaaraa ka hadlo, wax khaldan inuu ka hadlo ku hadlo ayuu ka baqaya.
ficil hadduu sameeyo wuxuu ka baqayaa in lagu qabsado wamaa ilaa dalik baqdintu waa ku badanaysa. waxaa ku badnaanaya axlaamu lyaqada, riya soo jeedka, oo inuu khiyaaliyaad istuso oo uu istuso naftiisoo gaadhay meel gaadho heer gaadhay, inuu istuso mustaqbalka waxa uu ka shaqayn doono iyo waxa uu ku dambeyn doono, inuu waxa weeye ku riyoodo jacayl iyo ciddii uu nolosha la wadaagi lahaa iyo gurigii iyo gaadhigii iyo noloshii uu ku noolaan lahaa ayaa kusoo noqnoqonaysa. waxaa ku dhacaya siraac inuu waxa weeye naftiisa loolan la galo. siduu ula gelaya? wuxuu isku qabanayaa baahida naftiisu ay u baahan tahay ee kala duwan, inay xorowdo, madax banaani qaadato, wax allaale waxay naftu jeceshahay inuu sameeyo, iyo naftiisa inuu ka dhiga naf wanaagsan oo toosan oo ilaahay sharcigiisana ku hagaagsan, bulshada dhexdeedana magac iyo maamuus ku yeelata. taana waa doonaya. labadaas loolan baa naftiisa ay ku keenaysa. waxaa naftiisa loolan ku keenaya waxyaabaha naftiisu ay danaynaysa la dareemayo, shahwadiisa inuu guto ayuu waxa weeye danaynaya, iyo sharciga iyo taqaaliidda iyo dhaqanka inuu ilaaliyo. labadana waa ku loolamaya. wuxuu ku loolamayaa qoyska inuu kasii mid ahaado iyo inuu ka madax banaani ka sameeyo ayay naftiisu ku loolamaysa. wuxuu ku loolamayaa waxyaabihii uu lasoo baray malcaamadda iyo caruurnimadii, wixii lasoo baray, mabaadi'dii iyo dhaqamadii wan wanaagsanaa ee bulshadiisa uu ka dhaxlay inuu ku taagnaado, iyo inuu qaato waxyaabo lid ku ah oo saaxiiba ay ku kalifayaan, ama miidiya uu ku kalifayo, ama meelo kale uu ka soo qaadanayo, ama naftiisu ay jeclaysanayso. wuxuu ku loolamayaa mustaqbalka waxa uu doonaya isagu inuu noqdo, shaqo haddii ay tahay iyo waxbarasho haddii ay tahay, iyo waxa ay ka doonayaan ehelkiisu iyo qaabkii uu u gaari lahaa. loolanka noocaasina waa gelaya. waxaa astaamihiisa ka mid a inuu dareemayo nabadgelye la-aan. waxaa ka mid a astaamihiisa daal inuu dareemayo. waxaa ka mid a astaamihiisa cinaad iyo mukhaalafo inay ku badan tahay waxa lagula taliya cagsigeeda inuu sameeyo, dadka canaado. waxaa ka mid a markuu muraahaqada gaadho inuu danaynayo jinsiga kale, hadduu wiil yahayna gabdhuhu danaynaya, hadday gabarh tahayna xagga inamada ayay danaynaysa, inuu arko, la hadlo, wamaa ilaa dalik. waxaa ku badan hawsha iyo shaqada inuu dhibsanayo o aanu jeclaysanayn. wuxuu badsanaya ama jeclaysanaya madadaalada iyo ciyaarta iyo wixii lamida. wuxuu ku mashquulayaa naftiisa. waxaa ku badnaanaya quusashada iyo cidhiidhi naftiisa inuu ka dareemayo. waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo ku imanaya qofka muraahiqa ah ee qaangaadhka ku dhow. hadduu helo dad fahmaya oo waxa weeye la tacaalaya, la dadaalaya, garab istaagaya, baahidiisa daboolaya, marxaladda si fiican buu uga gudbayaa. haddii kalena waxaa soo gaadhaya dhibaatooyin badan baa soo gaadhaya. wuxuu ka kobcayaa qeybta afraad xagga caqliga, maskaxdiisii baa kobcaysa. waxaa kobcaya dareenkiisa. waxaa kobcaya xasuustiisa oo xasuustiisaa badnaanaysa. waxaa kobcaya khiyaalkiisa oo khiyaalkiisaa badnaanaya. dhinacana waa ka kobcaya. waxaa isweydiin laha haddaba muxuu u baahan yahay ilmaha muraahiqa ayuu u baahan yahay. waxaynu leenahay oo muqadimada aan kaga soo baxay inaynu horta ogaano qofka muraahiqa iyo isbedeladiisa iyo duruuftiisa iyo axwaashiisa. muxuu u baahan yahay? wuxuu u baahan yahay ruuxdiisa iyo iimaankiisa in la dhiso, oo xagga diinta in laga dhiso, ruuxda laga dhiso ayuu u baahan yahay. waxaana la ogaada markii cilmi baadhis lagu sameeyey ilmaha muraahiqa ee qaangaadhka ku dhow sida naftiisu fudaydka iyo ay u jeceshahay ayuu alla subxaanahu watacaala ugu dabeeceeyey salaada iyo cibaadada iyo diinta inuu jeclaysto, ruuxdiisa la dhiso uu u jeclaysanaya haddii la helo ciddii ka faa'iidaysanaysa.
wuxuu u baahan yahay in la jeclaado, wuxuu u baahan yahay intimaa meeluu ku tiirsado, ama qoyskiisa ha noqoto, ama madrasadda ha noqoto, ama macalimiintiisa ha noqoto, ama asxaabtiisa ha noqoto. intimaa cid waxa weeye uu u nisbo sheeganayo oo soo dhaweynaysa oo fahmaysa inuu helo ayuu aada ugu baahan yahay. wuxuu aada ugu baahan yahay in la ixtiraamo oo waxa weeye makaanadiisa iyo shaksiyaddiisa in la ilaaliyo oo aan la yasin ama la bahdilin. wuxuu aada ugu baahan yahay in naftiisu waxa weeye sugnaato oo qof jira inuu yahay, taana in lagu caawiyo oo waxyaabaha uu ku wanaagsan yahayna la xoojiyo, waxyaabaha uu ku liitana loo buuxiyo, janis loo siiyo dadka inuu waxa weeye la hadlo, in janis loo siiyo inuu ka qayb qaato arrimaha bulshada, ka qayb qaato ra'yigiisa in la dhegaysto iyo waxyaabaha la midka ah. wuxuu u baahan yahay bulshada dhexdeeda boos inuu ku yeesho, in waxa weeye laga caawiyo. wuxuu u baahan yahay in tawjiih iyo waxa weeye talo bixin joogto ah in la siiyo si dhaqankiisa xumaada loo hagaajiyo. wuxuu u baahan yahay in loo raaxeeyo, dalxiis loo sameeyo, ciyaaro loo sameeyo, lagala qayb qaato, nolosha cidhiidhigeeda iyo culayskeeda waxa weeye laga khafiifiyo. qaabkaynu ula macaamilayno waxaan ku soo koobayaa dhowr qodob. markaynu ka hadlayna xagga xidhiidhka, qaabkaynu ula xidhiidhayno, waxaynu leenahay labada waalid ilmaha muraahiqa ah waa inay ogaadaan waxyaabaha uu ku fiican yahay, haba yaraata hadday doonto. waxa uu ku fiican yahay hadday tahay diraasada iyo dhibcaha uu keenayo markuu wax baranayo, imtixaanka natiijada uu ka keenayo, haddii ay tahay hadalka inuu ku fiican yahay, haddii ay tahay deganaanshaha iyo xasiloonida, hadday tahay waalidka iyo maqalkiisa, meelaha uu ku fiican yahay inta la ogaado in lagu ammaano oo la muujiyo, abaalgudna lagu siiyo. waxaa muhima marka lala macaamilaya xagga xidhiidhka, waalidku inuu xilligaa u muujiyo si gaara inuu jecel yahay. sa nabigu sameynaya calayhi الsalaatu wasalaam, xasan iyo xusein inta uu u yeedho usaamatu bnu zayd, caruurtii saxaabada, iyaguna saxaabay ahaayeen, ayuu odhanaya allahuma inii uxibuhuma, ilaahayow waan jecelahay, dadkoo maqlaya. idan waalidku inuu u muujiyo inuu jecel yahay, iyaduna waa qadiyad aada iyo aada u muhiima. haddaad adigu u muujin weydo, cidda u muujisa ayuu xidhiidh la samaynaya, ciddaasaana u badanaya. waxaa muhima waalidku inaanu muxaadarooyin badan u gelin. muxaadarooyinka in loo soo koobo maaha mar walba intaad u yeedho inaad saacad muxaadaro ujeediso. salaadu fadliga ay leedahay, saacad musaacaad kala hadlayso, waa inaad kelmadahaad u jeedinaysaa ay kooban tahay, usluub soo jiidanayana waa inaad ula hadashaa. muxaadaraadka badan inaad waxa weeye ka khafiifiso, ama waktiga aada la hadlaysa aada soo koobto, waxa weeye waa mid aada iyo aada u muhiima. wuxuuna ugu necab yahay ilmuhu markuu da-daa joogo, talooyinka waalidku ay siinayaan ayuu ugu necab yahay. marka inaad soo koobto oo aadan sii fogeyn baad u baahan tahay. waxaa muhima markaad la sheekaysanayso inaad jaanis siiso uu ku hadlo, oo hadalkaaga aada soo koobto, oo haddii uu wax ku weydiiyo jawaabo kooban aada siiso, si uu jaanis ugu helo isaguna inuu hadlo. waayo isku garaad ma tihidin, isku aqoon ma tihidin, isku waayo aragnimo ma tihidin. markaa si aad ula jaan qaaddo waa in hadalladaadu ka kooban yihiin. waxaad yaraysaa su-aalaha aad weydiinayso. haddaad u baahatay ilmahaaga inaad ogaato saaxiibkii, maaha 100 su-aalood oo talantaaliya inaad weydiiso. waa kuma, xaafaday degan yihiin, aabihii waa kuma, hooyadii waa kuma, iskuulkee buu dhigtaa, malcaamadee buu dhigtaa, sidee buu kula hadlaa. su-aala boolis ciiddaa ka badan inaad weydiiso maaha. waxaa kaaga filan haddaad doonayso inaad ogaato cidda uu saaxiibka la yahay, markuu kuu sheego si guud kuugu sheego, adigu sidaada inaad u doonato xogtiisa aada u doonto, ama isaga laftiisa qaab wanaagsan aad xogta uga qaadato. bal saaxiibkaa iiga sheekee waa qof nooceeye, dabeedna isagu inta uu kuu sheego aada waxa weeye ka qaadato. ogowna si kasta haddaad u baadhbaadho wax faa'iida ah ka heli maysid, waayo wuxuu jecel yahay waxyaabaha qaar inaanu sheegin buu jecel yahay. taana inaad ku ixtiraamto
aad iyo aad bay muhiim u tahay. xasan albasri waxa uu leeyahy ma istaqsaa kariimun qatun, qof sharaf leh oo kariima weligii dabagal uu isleeyahay gunta gaadh waxa weeye ma samayn. marka tan noocaasana ilmahaagu waa u baahan yihin. qodobada muhimkaa waxaa ka mid a ilmahaaga inaad musaaraxo la samayso, hadalka aad u caddayso, waxba aadan u sarbeebin, waxa garaadkiisu qaadaya inaad si cad ugu sheegto. hadday mashaakil tahay adiga ku haysta, hadday tahay duruuftaydi ku xeeran, si cad markaad ula sheekaysato ayuu isaguna si cad kugula sheekaysanaya, kalsoonina aad kala helaysaan. waxaa muhima an tushaarikahu lmutca, inaad kala qeyb qaadato farxadda, inaad la ciyaarto, inaad waxa weeye waxyaabaha uu jecel yahay, hadduu ku ciyaarayo maalan tv-ga ku ciyaarayo, hadduu daawanayo waxa weeye kartoon uu jecel yahay oo kale, inaad la daawato waxyaabaha uu xiiseynaya aan dhibka lahayn, inaad kala qeyb qaadato iyaduna aad iyo aad bay muhiim u tahay. waxaa ka mid ah cibaadada in lagala qeyb qaato, salaatuleyl lala tukado, waxa weeye jamaca la wada aado, waxa weeye cibaadooyinka kala duwan, muxaadaro lasoo wada dhegeysto, goobaha wanaagsan iyo cibaadooyinka wanaagsan ee kala duwan in laga wada qeyb qaata iyaduna aad bay muhiim u tahay. waxaa muhima inaad jaanis u siiso waxa weeye talooyinkiis, oo waxyaabaha qaar inaad kala tashato iyaduna aad iyo aad bay muhiim u tahay. waxaa muhima inaad ka fogaato waxyaabaha cidhiiriga gelinaya. waxaa aad iyo aad u muhima inaadan ku degdegin inaad wax u saxdo, inaad jaanis u siiso isagu inuu isa saxo, usluub wanaagsanna aad ku saxdo. waxaa muhima khusuusiyaadka waxyaabuhu gaarka u leeyahay inaad ixtiraamto. ma habboona haddaan shaki weyne aanu kugu iman inaad mar walba laabtoobkiisa iyo mobilkiisa aada dabagal ku samayso, ama aada jabsato, ama aada dabagasho, ama aada baadho. waxa weeye ma habboona. markaad wax khatara ku ogaato xaq baad u leedahay, laakiin haddaadan wax dhiba muuqaalka guud aanay kaaga muuqan, inaadan isku hawlin khusuusiyaadkiisa inaad farafarayso, gogashiisa aadan baadhin, shandadiisa aadan baadhin, aad iyo aad bay muhiim u tahay. waxaa aad iyo aad u muhima inaad ka fogaato inaad magacyo aan wan wanaagsanayn ama naanaysiyo ama dicaayado inaad u samayso, iyadana inaad ka fogaataa fiican, oo aadan ku sheegin, haba yeeshe tilmaanta hadduu doono inaadan magac uga samayn. maalin hadduu been kuu sheego aadan ku dhajin beenaale. maalin haddaad aragto isagoo meel wax ka siibaya, waa tuugii, waa khaayinkii, waa dhaalimkii, waa laayaankii, waa shaydaankii, iyo magacyada aan wan wanaagsanaan ee la midka in laga fogaado. waxaad ku saacidaa ilmahaaga markuu xilligaa joogo kalsooni naftiisa uu ku kalsoonaanayo inaad waxa weeye ku abuurto. waxaad ugu kaalmaysaa ahdaafta iyo yoolalka wan wanaagsan ee uu tiigsanayo sidii aada ugu kaalmayn lahayd inaad waxa weeye kala shaqayso. waxaa aad iyo aad u muhima inaad waxa weeye, waan kusoo gabagabaynaya, inaad waxa weeye u dhigto ilmahaagu inuu yahay qof weynaaday, naftiisana ka mas-uula, mustaqbalkiisana isaga laga doonayo. ta noocaasa inaad qaabab kala duwan aada ugu dhigto, inaad alle subxaanahu watacaala aada ku xidho oo aada u sheegtay xilligaa markuu soo gaadho ficilada uu samaynayo alle subxaanahu watacaala inuu waxa weeye kala xisaabtamayo, bulshadu inay kala xisaabtamayso waxa uu samaynayo, oo maanta caruurnimo inaan loogu cudur daaray. qaangaadhnimada noocaasa iyo mas-uuliyadda noocaasa inaad ku beerto waa mid aada iyo aada u muhima. waxaa aada iyo aada u muhima mushkilaadkiisa kala duwan ee ku imanaya in waxa weeye la daweeyo oo la cilaajiyo, oo mushkiladda ku timaada noocay tahayba, noocay doontaba ha noqoto, in mushkiladdu nooca ay tahay la ogaado, mushkiladda isaga laftiisa in lagala sheekaysto, laga tala weydiiyo waxa weeye mushkiladdaas sidii uga gudbi lahaa, sida isaga la tahay. waalidkana waxaa looga baahan yahay inuu waxa weeye ku sabro, ilmihiisa ha xumaado, wuxuu doona ha sameeyo, inuu waxa weeye ogaado ilmihiisa inuu u aqbalo inankiisii inuu yahay, oo alle subxaanahu watacaala isaga wax ka weydiinayo. sankaagoo qurmay lama gooyo bay soomaalidu yidhaahdaan. marka inaad la tacaasho oo aadan marnaba ka quusin, inaad ku aqbasho ceebihiis, laakiin aada isku dayda inaad waxa weeye ka hawl gasho. waxaa ka mid a inaad waxa weeye xalalka ugu wanaagsan
mushkiladda lagaga gudbayo inaad kala tashato dadka khubarada ah ee ku fiican caruurta iyo tarbiyadooda iyo wixii la mid ah. waxaan kusoo gabagabeynayaa aad iyo aad u muhiima in loo duceeyo say nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xasan iyo xusein iyo anas ibnu malik iyo saxaabadii kala duwanaaya caruurta ha ugu ducaynay inaad ubadkaaga ugu ducayso say nabi ibraahim ubadkiisa ugu ducaynay rabbi ijcal lii muqiima asalaati wa min duriyati iyo ambiyadii kaleba ay ubadkooda ugu ducaynayeen inaad u ducayso oo sujuudda aad ugu ducayso alla subxaanahu watacaala tawfiiqda inuu waafajiyo xaalkooda hagaajiyo kuu samafalaan ducadaasina waa hubka mu'minka iyadana insha allahu tacaala in lagula tacaalo intaasaan insha allahu tacaala kusoo koobaya wallahu aclam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم wanaagiyo samaan lagu bashay wargeysyada wacdigeena diintiyo ummadii waanadane aan wada weelayno weedhaha culimada